kulanti habboon idil ahaantiinba daawadayaal ku soo dhowaada barnaamijkeennii hadalhaynta bulshada iyo social mediaha oo aynu isku dul taagno hadba waxa daawada idinku aad nala soo wadaagtaan haddaanu nahay bahda alool t v media doorkan 3 video oo laba talantaale tahay oo aad idinku nala jeclaysateen in aanu aragno amaba aan wax ka nidhaahno sida falcelinta caadada inoo ahayd waa hagaag Zainab Ahmed Sahal oo joogta dalka Mareykanka ayaa waxay noo soo dirtay videogan fanka oo la wada jecel yahay ayaa gabadh aan isiri malaa waa Soomaaliyeed mise waa Carabiyad ma Barawaaniyad ba ayaa waxay qaadaysaa oo waliba dee si la yaab la daawade waxay u qaadaysaa heestan King Jama waa hagaag erayada waxa iska leh abwaan Abdiqani Xaaji October heesta sida ay King Jama ugu luuqeynayso waynu arki doonaa balse inantan bal in yar nala eega daawade sida ugu ciyaarayso la yaabkeeda leedahay inay isyeelyeelayso oo ay tahay brank ma hubo bal aynu hore usii gallo siday u qaybsan tahay erayada waynu garan karnaa markii hore anigu waxaaban silbo malaa wuxuuba waa waxa lagu sameeyeyba photoshop balse maaha codka inantu haddaan isyeelyeelaynin horta dee way heesi kartaa hadda heestu waa ma hadli kartaaba oo dee faladeganba waa kaneen haayo haaye bal haddaba haddaynu erayada uu abwaan Abdiqani Xaaji Ahmed ama Xaaji October uu u dhiibay fanaanada King Jama haddaynu dib isu dul taagno bal iyadana nala eega wiilow boqolaal horaa biladay ii sheegtayoo intay isboqreen haddana ku lumay bili iyo labo malaa in badan hadda qisooyinkaas waa jiraan sheekooyinkaas dadka bulshada waa laga dhexdheexan karaa waa hagaag dad badan oo qurbaha soo galay daawada dhibaatooyinka koobaad ee malaa cimilada ay la wadaagaan waxaa ka kow ah haddaana cimilada laba ku ahayn waa luuqadda bal ninkan oo calqalada ay kala kulantay in uu jiir ama dooli uu u soo galay bal siduu luuqaddii uga dabaashay ayaynu eegi doonaa iyadana Hello. Yes, sir. Excuse me. Actually, my English is not good. Okay. oo ugu horeystii wuxuu ninka u sheegay inaan horta luuqadiisu aanay fiicnayn oo halkaa uu ka cudur daartay balse haddaba sidii uu calqalada taalla meesha uu ugu gudbiyey ninkuu dheel buu joogaa wuxuu la hadlay dadkii malaa maareeyihii hoteelka qolkiisuu joogaa difaac buu ku jiraa kursiga dhakada uga baxay bal haddaba aynu siduu u gudbiyey luuqada ugu gudbiyey calqalada haysata But you know Tom and Jerry? Yes, the cartoon. Yeah, Jerry is here in my room.
war Tom and Jerry ma taqaanaa haa dee Jerry baa halkan jooga ninka maaraya laftigiisu wuu fahmay meesha in doole ama jir uu ku jiro. I'm sorry? Jerry is here in my room. You have a mouse in the room? Yeah. Please come here and when you come here, bring Tom with you. markaad ii timaadid buu ku leeyahay weliba bal Tomna soo kaxayso deetan ninkii But we don't have Tom in the hotel. Okay, come please. Okay. Thank ma hayna buu yidhi Tom bal soo carar buu waayahay bal waxaad maaraysidba bal adigu iskeen waayahay contact@alool.com fadlan wixii kale ee aad nala jeclaysataan daawaday ee aad hadba istiraahdaan bal dadka kale hala sii wadaagan ama ha sii gudbiyeen amaba bal waxay alool ka yidhaahdaanna la eega waanu idinka fadhinaa bal haddaba baaqii sheerta iyo like-ta iyada ku wada hadli mayno de hadda waa la isbartay markaa bal sheertana taabo subscribe-ta taabo dad yahow isdira bal wax taataabta dee taataabta farihiina yaryar khayraadka ku jira nooga faa'iideeya daawadayaal saaxiibayaal barnaamijkii maanta intaasuu ku soo eegyahay inta kulanka xiga aynu ku kulmi doono waxa aanu idinkaga tegaynaa ammaano allah marka hore horraameed haddaanu nahay alool media tv waa alool.com waxaa naga go'an in wararka iyagu ahaadaan kuwo ku salaysan xaqiiqada annagoo u soo tabinayna si dhexdhexaad ah waxaana naga reeban oo aanu ka aagannahay in aanu u adeegno cid gaar ah haddaba dhegaysta sida aad la socotidba waxa waayahan dambe soo kordhayay shirkadaha iyo siyaasiyiinta maalgelinaya warbaahinta sidaa aawadeed waxa aanu idiin xaqiijinaynaa in aanay jirin cid gaar ah oo maalgelisa alool.com hadday tahay shirkadaha xisbiyada siyaasiyiinta ganacsatada iyo wixii la halmaalaba warbaahinta alool waxa ay wax soo saarkeeda kala soo baxdaa oo keliya dhegaysta waa adiga daawashadaada iyo ku xidhnaanshahaaga oo google ku bixiyo lacagtaas oo aanu si wanaagsan cilaaqaad ugu leenahay amaba se cilaaqaad noogaga dhaxeeyo maadaama iyadoo aanay ahayn ciddan gaara ka leh hawsha aanu bulshada u hayno taasi xorriyadda iyo madax bannaanida ay noo sahashay ayaa sababaysa in aad ku kalsoonaan kartid wararka aanu idiin soo tabinno haddaba si aanu hawshaa u sii hor qaadno una sii horumarinno waxa aanu idinka codsanaynaa in aad garabna siisaan idinkoo sabskrayb sheer iyo like-ta noogu roonaanaya insha allah waanaad ku mahadsantihiin haddii aanu isdul taagno qodobada ugu waaweyn ee aanu ka codsanayno kasbashada taageeradiinna waxaa ka mid ah saddexdan soo socda 1 waa in aanan meel gaar ah ka soo jeedin shaqaalaha alool media waxa ay ku kala sugan yihiin geyiga Soomaalida oo dhan meelaha aanu shaqaalaha ku leenahayna waxaa ka mid ah Muqdisho Hargeysa Kismaayo Burco Kalkacyo Jigjiga Garowe iyo Baydhabo annaka oo ku hawlan sidii aanu uga samaysan lahayn laamo kale magaalooyin kale weliba waxaa intaa ku sii dheer wararka caalamiga ah ee daafaha adduunyada ka dhacaya saacadda iyo barnaamijyo kala duwan oo aqoon kororsi ah qodobka labaad waxa aanu ku imtixaanaa qof kasta oo noo shaqaynaya xeeladda iyo aqoonta uu u leeyahay saxaafadda taas oo sababta inaad naga heshaan warar dhacdooyin iyo barnaamijyo tayo leh dhanka hubinta wararka ayaa mararka qaar keenta in nala ka hor sheego warkii inta aanu hubinayno waxaanaanu aqbalnay in ka horraynta war soo tabintiisa ay ka muhiimsan tahay hubinta xaqiiqada warka taas oo muhiimaddeedu sii kordhayso waqtigan lagu jiro qodobka saddexaad
waa in aanu bulshada ku xidhnaanno una adeegno annaka oo u heegana hadh iyo habeenba. ugu dambayntii dhegaysti astaanta isha waxa aanu u doorannay in aanu bulshada u noqonno indho u arka waxa aanay arag. hees xigmaddeedu aad u ballaadhan tahay may ahayn indhaha nuurkaba darbaa ka sitoo kuwaa qalbigaa ka arag badanoo wax aanay arag bay ogaadaan. waxaan ku soo gebagabeynaynaa barnaamijkeennii gaarka ahaa. fadlan haddii aad ku cusub tahay kanaalkeenna sabskrayb garee jaraska ama gambaleelka raaci si aad ula socoto barnaamijka cusub markuu ku soo dhaco. sii layg garee siina sheer garee si aad asxaab iyo ehelba ula wadaagto. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.